السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى دنبقينا iyo dambiga waalidkina dhaafo. walaalayaal sidaad ogtiin maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u qiimo badan. mowduuc kastana sidaad ogtiin wuxuu la qiimo yahay waxa uu ku saabsan yahay. waxaanu ka hadlaynaa magacyada Ilaahay. maadaama aanu ka hadlaynaa magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax yar ayaa iga khuseeya maadaama magaciga dadka qaar ay ku muransan yihiin naasir ma kamid yahay magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mise kamid ma ahan. munaasabada darteed maadaama naasir lii bixiyay ama naasir la yiraahdo waxaan ku dhashay magaalada Qoryooley waxay ahayd magaalo jawigan oo kale leh wabi leh geedo leh qara leh babaay leh amba leh moos wax kasta marka saas darteed waxaan jeclaaday maanta inaan soo xasuusto jawiga magacaas waxay bixisay hooyaday waxay bixiyay hooyaday aabahay waxaana la igu magac daray xaaji naasir nin la oran jiray oo asalkiisa Yemen ka soo jeeday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariistee. walaalayaal magaca naasir kitaabka iyo sunnada kamid ma ahan mana u soo aroorin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mana u sugnaanin magac la yiraahdo naasir oo lagu sheegay kitaabka iyo sunnada saxiixa ah ee Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam. waxaan shaki ku jirin inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala yahay naasir u gargaara adoomadiisa u gargaara. marka Ilaahay laga waramayo waxa la oranayaa Ilaahay waa naasir oo u gargaara adoomadiisa laakiin ma ahan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala magac u sugnaaday kitaabka iyo sunnada. saas darteed culimada oo isku khilaafeen qaar waxay yiraahdeen Cabdi Naasir wala la bixi karaa maadaama la oran karo Ilaahay waa naasir Cabdi Naasirna waa la oran karaa. taas waxa ku tagay sida Sheekh Uthaymin rahmatullahi alayhi dhinaca kale Sheekh Ibn Baas Sheekh Bakar Abu Zayd iyo culimo kale badan waxay dhaheen maadaama kitaabka iyo sunnada aysan ku sugnaanin ma banaana in magacaas lala baxo oo la yiraahdo Cabdi Naasir laakiin qofku waa inuu la bixi karaa naasir. haddaba saas darteed magaciga waa naasir waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala walaalo badan inay ka qanci doonaan. haddaan u gudubno mowduuca walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay magacyo aad iyo aad u fara badan. xalqadan xalqa ka horeysay oo nooga soo hadlay magacyada 99 ee haatan ay dadku yaqaanaan kuna xarlan kitaabada iyo darbiyada ama laga helay internetka iyo YouTube-yada qaar badan oo kamid ah sax ma ahan oo magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u sugnaaday kamid ma ahan. xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna lillahi 99 asmaa. Ilaahay waxa u sugnaatay 99 magac man ahsaaha dakhala aljanna qofka kooba janna ayuu galayaa. marka macnaheeda ma ahan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay 99 magac ka bas laakiin ka badan uu leeyahay. marka xadiiska macnihiisu waxa weeye 99 magac ee Ilaahay magacyada Ilaahay ee fara badan 99 kamid ah qofkii kooba janna ayuu leeyahay. qofka koobaana walaalayaal jannada ma ahan inaa magacyada uu xifdidin laakiin waxa la iska sabaa saddex shardi weeye oo aan hore u soo sheegnay. kow waa inaad lafdiga taqaanaa oo Allah al-Karim al-Hakim macnaheed aad taqaanaa. laba inaad macnahooda taqaanaa. saddex inaad ku camal fashid waxyaalaha ay mataqaanaa keensanayaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markaad baratay inuu yahay samiic ha ku hadlin wuxuusan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka ahayn. haddaba aan u gudubno mowduucyada magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala 99 aan halkan ku hayo kulligood daliil ay leeyihiin walow ay dhici karta qaarkood in xataa hadal laga keeni karo oo la dhigi karo yani masaas laga wadaa laakiin 99 insha Allah ta'ala aan isla dhageysano kuwaasna lagu dadaalo in la xifdiyo iyo kuwa kale oo sugnaado fara badan ba. kow Allah al-akhir al-ahad al-a'la al-akram al-ilah al-awwal al-bari al-batin البر البصير التواب. ومقعد الله سبحانه وتعالى الجبار الجميل الحافظ الحسيب الحفيظ الحق الحكم الحكيم الحليم الحميد الحي الحيي الخالق الخالق الخبير الخلاق الديان الرب الرحيم الرحيم الرزاق الرفيق الرقيب الرؤوف الصبوح الستير السلام السميع السيد الشافي الشاكر الشكور الصمد الطيب الظاهر العزيز العظيم العفو العليم العلي الغالب الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القهار القدوس القدير القريب القهار القوي القيوم الكبير الكريم الكفيل اللطيف المبين المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحسن المحيط المصور المعطي المقتدر المقدم المقيت الملك المليك المنان المهيمن المؤخر المولى المؤمن. نعم
النصير الهادي الواحد الوارث الواسع الوتر الودود الوكيل الولي الوهاب. ولا ليال انتاس وإن كم ده سجاشن سجالك مجاعة إلهي سبحانه وتعالى وها إلهي سبحانه وتعالى ويديسنا إنه ذنب يدنا دافي ذنب جوالد كن إسلامك إلهي سبحانه وتعالى وحن ويديسنا إن مجاعدي سوى وناكسنا كويديسنا إنه نورنا حريست إسلامك أنا نجاي لقوة كوب مجاعدي إسلامك أنا جنة.